dawladdeenu waxay leedahay tub la yiraahdo tubta siyaasadda loo dhan yahay oo ka shaqeysa sidee dadka la isugu keenaa sidee dastuurka loo dhameystiraa sidee asxaab siyaasadeed loo aadaa sidee awood qaybsiga looga shaqeeyaa sidee dadka Soomaaliyeed mustaqbal 100 sano soo socota u yeeshaan ay ku dareemaan dawlad iyagu ay wada leeyihiin sheekhu wuxuu noo sheegay in la helo amni dhaqaale dawladdeenu waxay leedahay tubta dhaqaalaha oo ka shaqeysa sidee dhaqaalaha loo kobciyaa sidee musuqmaasuqa loola dagaalamaa sidee ganacsatada iyo dawladda la isugu soo dhaweeyaa sidee hay'adaha dhaqaalaha dunida dib loola falgalaa sidee baan u noqonnaa intaan canshuur aruurino dawlad isku filan oo aan tuugsan sidee dhaqaalaha annagu aan leenahay awgiis aan sharaftii karaamada ummadda Soomaaliyeed u soo celinaa sheekhu waxa uu noo sheegay in la helo ciidan dhisan amni wuxuu na fahamsiiyey marka amnigu inaanu shaqeynayn haddaanu dhaqaale lahayn waxa kaloo na fahamsiiyey amnigu inaanu shaqeynayn haddaanu lahayn siyaasad loo dhan yahay waxa is waafaqsan khudbadda sheekhu halkan ka jeedinayay shaqada dawladda tuba faraadu noo sheegay oo ah sidee baa loo ilaaliyaa fikirka xajirka ah soo ma dhihin sheekh sida dawladdu waliba dadkeeda waxay ku kasbataa inay bixiso wax la yiraahdo adeeg arrimo bulsho inaad iskuulo u dhisto isbitaallo u dhisto jidad u dhisto dadka Soomaaliyeed inay adiga ku dareemaan inaad tahay cidda siinaysa adeeg ay xaq u leedahay si subax markuu qofku soo kaco oo uga dareemo amnigiisa uga dareemo nolol maalmeedkiisa uga dareemo noloshiisa mustaqbalka carruurtiisa sidaas daraaddeed dawladduna waxay leedahay tub afraad oo ah tubta arrimaha bulshada taasoo macnaheedu uu yahay si dawladda ay dadkeeda u kasbato waa inay adeeg bulsho ay siisaa hadafyada dawladdeenu marka ay ka shaqeyso waxa ay ku qotontaa ma aha sanad ama 6 bilood waxay ku salaysan tahay 50 ama 100 sano soo socda wiilashii iyo gabdhaha naga dambeeya waxaan rabnaa inay ka sii wadaan meeshaas waxaa la rabaa marka in la fahmo hal mid qof walba jooga xukunka maanta qof baa uga dambeyn doona su'aasha aan rabno inaan isweydiino waxay tahay haddii aad ra'iisul wasaare tahay intii aad joogto maxaad uga tagtay haddii aad madaxweyne tahayna intii aad joogto maxaad uga tagtay haddii aad wasiir tahayna wasaaraddaada maxaad uga tagtay haddii aad baarlamaanka tobnaad tahayna maxaad uga tagtay meeqa sharci ayaad baas garaysa qof waliba waxaa lagula xisaabtamayaa 4 sano uu joogo taariikhda uu ka tagay ugu dambeyntii marka waqtigeenu dhamaadana lama dhihi doono meeqa maalmooda muranteen yaa muranki ku adkaaday waxaana la kula xisaabtami doonaa maxaad dhisteen waxa kaloo la kula xisaabtami doonaa maxaad dumiseen waxaan rajeynayaa maadaama aan masaajidka ku jirno taariikhdoona inay xusto inta badan